dadka danyarta ee degan xaafadda Muuqdheer ee ku taala degmada Macalin Haruun ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho ka muujiyay dad ku haysta qayb ka mid ah dhul ay dawladda hoose dejisay kuwaas oo sheegay inay dadkaasi u awood sheegteen isla markaasina ay ku haystaan dhulkoodaasi haddaba qaar ka mid ah dadkaasi ayaa baaq u diray dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa taasoo uu hormuud ka yahay maayarka caasimadda Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko waxaanay ugu baaqeen inuu wax ka qabto dadkaasi ay sheegeen inay u awood sheeganayaan iyagoo maayarka ku ammaanay dhulka uu dejiyay waxaana ka mid ah hadaladoodii 2013 ayaa wadadan maxay 150 aynu ka joogano ayaa idin dib habeen lagu sameeyay dabadeedna xaafadda maxay ahayd dib dejin lagu sameeyay ilaa maanta hadaba 2013 ilaa maanta waxaanu qaatiyaan oo xaafadii ka tagan tahay laba qof aan qaatiyaan ka nahay nin balowgiisa xaqan dambe naga dambeeyo wada 15 ay noo dhaxayso waa Cabdi Reega la yiraahdo iyo gabar maxay ahayd in dib la yiraahdo beertan maxay ahayd iyaduna la wadintii guud horena looga jaray ayaa ilaa maanta ilaa maalintii cagafun bay soo kaxaysanaysaa xaafadii bay maxay ahayd kolba cal dhinac kaga keenaysaa walba qorsheensanaysaa hadaan bileysku naga soo gaarin guryaha bay nagu gelinay cagafta maxay ahayd ninkaasina waxa uu dabada ku haya xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka ayaa maxay ahayd uu dabada ku haya kuwaas gacan siinaya marka waxaan ka codsanaynaa isagana kiis baa isagana maxkamadda ku jira dumarkaas kiiskaana waxaan leenahay maxay ahayd guddiga maxkamadda waa ninka garsoorahaana dib u eeg baan leenahay niyow kiis maxay garsoore Elias kiiska dib u eeg baan leenahay oo dib u noqo guddiga cadaaladuna maxay kiiska ayaga dib hana loogu eego maayarkan waxaan ka codsanayaa arrin kasto maxay ahayd adiga dadkan dejiyay mudane maayar maxay ahayd wixii maxay ahayd nabadgelyo dar dadka naga yimaada naga qabo aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa guddida nabadgelyada ee ugu horeeya barasaabka gobolka maayarka caasimadda Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko Cabdiraxmaan Cabdicasiis Cagaweyne iyo cid kastoo wasaaradda amniga ay qusayso in la naga qabto ninka la yiraahdo Cabdi Reegal ee dadka danyarta ah xoogga ku muquuninaya aanu ka dhisan kari laanahay hantidayadii dawladuna dejisay eenu kaararkii haysano ay kuwa yihiin kaarashii kaarkii uu ka yahay dawladda hoose nagu dejisay iyo kii rarista ayaa xoog nagu muquuninaya 17 sanadood baan deganay jiciir baana dejiyay ka bacdi waxa noo yimiday Cabdiraxmaan Solteelko oo wadada 150 kana mariyay hadii uu na mariyay halkii wadada 150 ku maraysay uu na dejiyay halkii danta guud aanu deganayna wadadii 150 ka martay maamkii baan qabsaday ninka iyo gabadhaan haysta wax dan guud oo la nooga jaray ambasa dhul oo la nooga qaaday haba yaraatee ma jirto waxa weeyaan maayarka Cabdiraxmaan Solteelka na siiyay na dejiyay 55 qoys ayuuna nagu dejiyay sababta la noogu diiday waxa weeyaan wajhadoon waxa weeyaan wada 15 noo dhaxaysa annagu wadada 150 kan ku jeedna wadada waqooyi naga martay ee naga dambaysa ay waqooyi ka sii xigaan marka waxa ay doonayaan waa wajhad idinka fiicninde annaga idinka wanaagsan bay leeyihiin marka waxa weey dawladdu dadka maatida ee danleyda ah ee ay dejiyeen maatidoodii de waxa weeyaan halaga qabto dadka dulmiga ku haya ee u aga jugleynaya ee xaq darrada ku haysta marka dabcan waxaan oran lahayn dawladda dhulka ay dejisay ee dadka nagu haystaan ilaa wajahadaan doonayna wajahada dad iyagoo kala aba degan dadkaas waxay noo dhaxayso wada 15 annaguna waxaan ku jeednaa wadada 150 uma qalantaan bay markaa leeyihiin annagoo Itaaliyar oo ilaahay jaahiisii joogna oo aqal ku jirna oo dawladuna dejisay hooyo buulka habeen walba waa lagu gubi ayaanan u saaxan ragaygii ilaa faafan iyo ilaa magaalada biyo guura la yiraahdo berbera xagga kale ka xigta iyo uuskiisi ka batay arliga waanu dhashay waanu dhalay waanu dhaqmay hooyaha la naga qabto dadka ninka ina Reegal iyo inantaa la naga qabto ee iswata ee awoodda sheeganaya ee itaalka sheeganaya waraaquna gudajiyay kaadhbuuna gusiyay waxa soo baxay dad yiri way boobeen dhul boobay ku haystaan xoog way ku haystaan meesha naga lahayn in laga qabto 2 bilood ba 3 bilood baan u xidhnayn xoog way nagu haystaan sandaqadeer ma dhisan karno naga qabato dawladdu ana aragto dawladda sare iyo dawladda dhexe iyo toosaba aragto Maxamed Jookar telefishinka Home Cable Hargeysa